waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqadda xala soo baxday oo ka timid macallin Mahdi waxaan uga jawaabaa qofkay ka soo baxday reerkay ka timidna waa la yaqaan reerkay ku socotana waa la yaqaan wax uun baa la dubdubayaa ma ahane oo usha diirka lagu dubaa ma ahane hadii laga qaado bahasha diirka laga qaado qof walba waxa gubayo farti lagu fiiqo Soomaalida hadana waxaan noo xeeray inaan xoogaa wax hoosino laakiin macallin Mahdi waxaan ku leeyahay aduba wax ma hoosine waa in abru ku jawaabaan ilaa rakuma faciidi waxaan rabaa shalay dhibaato dhacday dhibaatadii dhacday waxay ka dhacday degmada Daynil la qayb kamid markii dhibaatadii dhacday macallin Mahdi waa soo orday mawsan imaan meeshii dhibkii iyo dhiigii leena wuxuu yimid qayb kale oo degmada kamid oo xoogaa qolo ay qaraabo yihiin u joogto anagoo aan qaraabo ahayn laakiin asiga ay qaraabo yihiin meeshii uu hadal ku yiri woona ka naqay macallin Mahdi oo su'aal waxaan nahay dad wax garto waaweyn aqli leh maanta dunida qofkan diin iyo maadi baran laba dhagood uu leeyahay dunidu waa qurfa waaxida hal qol waaye wax walba eedada ariga jirta wax fahansan macallin Mahdi oo madaxda dawladdan kugu soo qaba inta ka sara mariyo horta madaxweynuhu dhagamale oo wax ma maqaliyo isaga waxaan leeyahay inaad ooynayo inaan aamusnay inaan shir galnay in la laayo kala ma jeclid aqligaadu waa habar gaal oo haday dhimato meelaha isku baqtido ma dhimatay waa baqtidaay ama odagaale inaad lacagti masaakiinta la siilay diyaarad ku kireysatood carartood madaxa soo gundhido hoos u baxo hoos aan u imaado macallin Mahdi teetalkeed ma lihid hogaamiye uma naqa kartid kuguma haboona ninnimadeed ma lihid uma aadan dhalan hogaan ciidanka booliska Soomaaliyeed madaxa koobaad waxa u daliila kullukum raa'in wa kullukum mas'uulin an ra'iyati qof walba waxba la raacshay wixii la raacshaana laga rabaa warqadaad xal soo qortaa waxa ku qoray tuuga dukaan dhacaysay aayeen walow tuugo hadda tuuga ma baahin walow tuuga dhashiika lagu difaayay adiga saxa qabiisa markii dukaanta la dhacay adiga soo lagu ma raacin dukaanteeda dadka xoolahoodii adiga lacagta maxaad ku cuntaa aad gobolkayad meel walba ya habraal ka boorsooyinkooda ka jafe soo inaan dukaanta la dhicin oo shacabka u xad gudbin oo qof taaban soo mas'uul kuma ihid walaw ay tuuga ahaayeen wallahi thumma wallahi ya waxa fiicnaa lahayd qof walba i dhageysanayo meediya iga maqlo waxa fiicnaa lahayd heerka dawladnimo meel loo jariyaa jiray aan u wada jarino madaxweynuhu hay maqlo gudoomiyaha baarlamaanka hay maqlo kan gobolka hay maqlo Umar ay igu sokayo inta fadhiyahay maqlo adiga macallin Mahdi oo mas'uulka isku sheega mas'uul maahida shaydaanul insiyow idageysa hadalkii dawladnimadu waxay ka soo baxdaa aniga 4 mitir min madaxtooyay ku tagtaa waa in la isla wada hadii la rabo markay tuuga ahaayeen oo dukaan islaameed jabsanayeen dadkan dhashiikayaasha daboolyarayaasha u soo dirtay adigu waxaad qabaysa ciidankii booliska Soomaaliyeed waaxihi talisyadiini amnigii gobolkaanu lahay annagaad waxaad nooga sheekaysaan shimbirayo heesa dal noloshiisii oo dhanba ay naqata warqad ma wada tahay dhul banaan ma soo aragtay meel wala tumbulqoo lagu dunsheeyo meel wala baasa taalo ha nooga sheekayna annaga shimbirayo heesa waxaan idin sheegaynaa macallin Mahdi ma lees dhihi karaa xoogaa waad yara ficil hinaastay inaad ficil hinaasto ma lees dhihi karaa macallin Mahdi jawaabtaada saxda waxa saakon aniga ku siinaya waxaad warsataa adigu beesha aad ka dhalatay hoos inta dukaanay raadeer ku nool yihiin ku leeyihiin noloshay nugula nool yihiin sharafta derisnimo midda walaalnimo qiimeynta bini'aadnimo waxaan nahay dad la dega dadka ugu sharafta badan waxaadna nagu tilmaantay tuugaad nagu tilmaantay wuxuu yiri hadaad safar nabitaa suufi cali kuma arkeen raali ayga ahaadaan cidaas waa mahmaayo Soomaaliyeed ay naqatay hadaad safar nabitaa yiri suufi cali kuma arkeen ninka dukaankiisa la dhacalay xoogaa ku yara ficil hinaasiyo ku kiciyay adiga waa is yaqaan hawiye waa is yaqaan Soomaaliyuna waa istaqaan xoogaa waa ka yara fogyaa habeen oo nooga kaasukaya beesha adiga aad ka dhalataa balaayiin trillion dollar dukaana oo yaalo kule lamana caadifadeeyo lamana cunsurideeyo xumaana laguma sameeyo waa walaalahay nagu dhex ganacsado gob lagu dhex ganacsado haday jirta ama la degana waa anaga
waxaad fahantaa Soomaa macallin Mahdi oo dadka dhaawacday iyo dadka leeyso daboolyarayaasha u soo dirtay inta aaka lagu aamini waayay dhishiika lagu nishaabaye isnaybarka foolka looga tooganay warqad yar oo nin aad xoogaa qaraabo koratiin xalay inta la dhugdhugeeyo ku keenay sheekadaas kaama saarto ma ka saarayso meeshii kale la cugsa lahayd adaa yaqaan meeshii kale geey lahayd adaa yaqaan waxaan idin sheegayaa dadka halkaan fadhow meeshan dadka joogo waxaan u sheegaa walaalahay ah qabiil wax la yiraahdo in la madagana dad isla deganoo waxa degan mushakal oo kala nooc oo ashkaal alwaana waxaan nahay inta ah oo qabiil isaguna marqaati oo yahay hadduu macallin Mahdi masuul naga yahay shalo warlalis inta noogu imaado oo cabashadeena ka jawaabi lahay inta dibka socda laamigan dheer oo afar wiil been ugu sheegtay inuu amniya intana uguma ordeen haddaad wax naga halayso laami iska daay baadiye wax qiimid xataa Muqdisho ma galayaan mana ka baxayaan in Allah ya intaan xayndaab iyo xuduud ku leena adiguna waa taqaan inta ka dambeysana waa taqaana nin walba meesha isagu ka taliyo xiran doona waxa kale dhegana malihidin waxna ma qashin laakiin waxa iska sii jeegi doona dunida application waxa jiro markaad afka Soomaaliga ku hadlayso English ka dhigo ama Carabi ka dhigo dawladaha xataa shisheeye inay ogaadaan inaan idin sii ahbi jirno tuugoy oon saan u qayli jirno taasaan rabnaa dantaan ka leenaa ma taqaanin waa sii qaylihaynaa marka waxna kuma taaliin waxna nuguma tartiin teetalna malihidin wajina kuma noolidin adduunyana waxba lama joogtiin waxa kale oo inaan u jawaab rabaa niman mursadaha shalay waxay dhaheen naaga fawda oo mursadaha niman fawda loo taliilaya nimanka erayadaas shalay dhahayay way is yaqaaniin mana magacaabayo iyo kuwa aniga jidkan igula dhegdhegay shalay waxaan leeyahay mursadiya halgamaayaasha ayoo tagay hadii qabuuradii war laga dabageey kara ana qaadi lahay aniga ka dabageey lahay hadii kale ilaahay ma qadarin inta hadda nool ee damiir ku jirtana waa qolaan xilhayn laakiin waxaad ogaatiin waxaan aniga naaguhu 100 mar dhaama rag mursada magacyo u leh shaatiyaal u leh surwaal u leh koofiyada u leh rag lagu tilmaamo madaxda mursada hadalkayga ma sii badinaya madaxdii shalay timiday waxaan idin kaga dambeynaa erayadii shalay haday shimbiraya oo heesa naqdaan hawsheenan qabsan doona haddaad wax noo qabataanna waa sugaynaa kuwa naga maqan oo goonida noogu astaysana waxaan leeyahay qabiil gooni